asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan maanta idiin soo gudbin doonaa qiso yar oo cajiib ah. waxa ay ahayd gabadh muslimad ah. waxa uu alla weyna siiyey cod aad u macaan, taas oo ay ku akhrin jirtay qur'aanka kariimka ah habeenka intiisa dambe. waxa ay gaadhay ay hooyada gabadhan dhashay ay soo jeedo habeenka intiisa dambe si ay u dhegaysato codka aadka u quruxda badan ee ay gabadheedu qur'aanka ku akhrinayso. haddaba maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa dhacday in gabadhii ay xanuunsato xanuun daran. weliba waalidkeed waxa ay go'aansadeen inay cisbitaal u qaadaan inantooda. kadib waxay u qaadeen cisbitaalka, laakiin nasiib xumo daqiiqado yar kadib waxaa loo sheegay in inantoodu ay geeriyootay. murugo iyo samirsiin kadib waxaa la aasay gabadhii. laakiin maxaa dhacay markii gabadha la aasay? waxaa la yimid gurigii. waxaa meesha ka baxday farxaddii lagu yaqaanay reerkan. laakiin markii la gaadhay habeenkii, weliba xilligii ay inantan qur'aanka akhrin jirtay, waxaa soo kacday hooyadii sidii caadada u ahaydba. marka ay u soo dhowaatay qolkii inantu ay degganayd, hooyadii waxa ay maqashay ooyin, weliba dad badan oo ooyaaya. hooyadii waa ay argagaxday. kadib waxa ay soo kicisay aabbihii guriga. kadib isaguna waa uu la yaabay. waxa uu galay qolka. waxa uu daaray laydhka. qolka mise cidi kuma jirto. habeenkii labaad iyo saddexaadba waa sidii. waxbaa ooyaaya. markii la gaadho xilligii ay inantu qur'aanka akhrin jirtay, haddana lama arkaayo. kadib arrintan waxaa loo soo bandhigay sheekh. waxaa la belimiyey xilliga ay arrintani dhacdo oo ah 1:00 habeennimo. kadib sheekhii ayaa yimid guriga, mise waxa uu maqlay wixii ay hore u maqli jireen reerkani. kadib sheekhii isagana waxa uu la dhacay ooyin xaddaaf ah, taas oo ay ka yaabisay reerkii oo dhan muddo. kadib ayuu sheekhii reerkii ku soo laabtay, waxaana uu weyddiiyey maxaa ay qaban jirtay gabadha xilligan oo kale. maamada guriga ayaa dhahday xilligan oo kale waxa ay akhrin jirtay qur'aan, salaatuleylna waa ay tukan jirtay. kadib sheikhii isagoo oynaya ayaa uu dhahay, wallaahi waa ruux wanaagsan gabadhaas, sababta oo ah waxaa oynaya oo aynaan arkaynin waa malaa'ig iman jirtay xilligan oo kale, kuwaas oo waayay codkii wanaagsanaa ee gabadha, taas oo qur'aanka ay ku akhrin jirtay cod macaan. haddaba walaal, ruux walba oo farriintan dhagaysanayo isweydii, maxaad u diyaarsatay la kulanka alle? ma akhrisaa mana fahamtaa kalaamka alle weyne? ma tukataa salaatuleylka? wallaahi waa la dhiman, cid hadhaysaana ma jirto. fadlan 2 daqiiqo ka fikir, maxaa lagu abuuray? goormayna ajashaadu tahay? waxaan hubaa inaad naftaada baadi goobi doonto haddaad tahay ruux iimaankiisu uu wanaagsan yahay. ogow, maanta fursad ayaad haysataa. waxaa la gaadhayaa maalin fursad kale aan lagu siinayn. haddaad imtixaankaas mar ku dhacdo, ma jirto fursad kale oo aad isku soo haybisid. hadda ayaad haysataa fursad. marka ka faa'iidayso walaal. noqon ruux caaqil ah oo si wanaagsan u fikira.